oo ku dhisnaa ballanqaadyadii aan hore u samaynay ballanqaadyadaas yaa rabaa xoogaa inaan wax idinka xasuusiyo marka hore intaan ballanqaadyada bilaabin reer banaadir mar walba waxaan rabaa inaan idiin sheego sidaad u jeceshihiin dowladnimo iyo inay dowlad ka dhalato oo magaalada muqdisho ay noqoto magaalo bilicsan oo wanaagsan oo Soomaali u dhaxaysa waxay ka turjumaysaa sida aad mar walba aad noo taageertaan oo aad dowladda u taageertaan khaasatan sidaad anigu mar walba ii taageeri jirteen marxaladihii kala duwan aan soo marnay iyo doorashadii la soo maray iyo markii la guulaystay kadib waxaa taas ay ka turjumaysaa inaad tihiin dad hor socda oo doonaya Soomaaliya inay hor u socoto horumar gaarto ilaahay ajr ka siiyo magaaladan waa soo noqonaysaa siday ahaan jirtay ku soo noqonaysaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo ballanqaadyadii aan ummadda ka ballanqaadnay waxay ahayd inaan ku shaqeyno rabitaanka shacabka oo aan ognahay waxay tahay kow inay tahay dowladdu inay wada shaqayso dowlad iskhilaafta dooni maysaan annaguna waxbaan ka baranay dowladihii la soo dhaafay wixii qaban kareen waa qabteen waa u duceynay heer yay soo gaarsiiyeen waxaan ka baranay waxay tahay in dowladdu ay ku macno fiican tahay ay ku khayr badan tahay inay wada shaqayso wada shaqayntuna ay ka bilaabato madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ama xukuumadda iyo baarlamaanka iyo shacabka ay matalayaan oo idinka ah dowladda iyo caalamka intaasoo wada shaqayna annaga waa naga go'an tahay waana naga go'an tahay inaan horumarino wada shaqayntaas bacdamaan ognahay wada shaqayn la'aanta iyo khilaafka Soomaaliya meeshay soo gaartay waxaan ballan qaaday oo bishinkayga ama aragtideeda foga ummadda Soomaaliyeed inaan rajada ku soo celino rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso waa nabad iyo nolol nabad iyo nolol weeye nabad iyo nolol haddaysan jirin ummad ma jirayso waxaana bays u ah nabad iyo nolol koob waa idiin sheegay danta shakhsiga inaga guuro oo loo guuro danta guud waxay tahay oo aniga iga bilaabatay oo idinku aad igu taageerteen inaan idin keeno saan idin badan qaaday ra'iisul wasaare iga wanaagsan ra'iisul wasaarahana ballantii waa fuliyay wuxuu keenay wasiiro ka wanaagsan wasiirada waxaa looga fadhiyaa bacdama 60 bari ay joogaan inay keenaan shaqaale ka wanaagsan ballantaas midin fuliyey ballantaas kuwa ku xigana aan idiin sheego aan idin fulinay ammaanada kow waxay ka ahayd wixii aan ballan qaaday ammaanada ummadda Soomaaliyeed waa kala shakisay waana kala fogaaday waxaa la isku diray qabiil iyo qabyaalad iyo xagjirnimo ammaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan siday tahay idinkugu hayno oo aan isku kiin hayno oo wada jir iyo midnimo idinkugu shaqayno wixii aad noo dhiibateenna si fiican idinkugu maamulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa aysan jirin shaksi keligiis gaar u naaxa oo aad kulli nolol wada heshaan oo nimcada ilaahayna siiyay khayraadka dalkan leeyahay uu idinsoo wada gaaro macquul mana aqbalayno waddankan barwaaqada ku jirta in wiil Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ee gaajo ku seexdaan mana doonayno waana ka dagaalaynaa riboorku idin siiyay ra'iisul wasaaraha waa bilaw waxaa idinkaga fadhiyaa idinka dulqaad yaa idinka rabaa iyo wada shaqayn inaad sii xoojisaan inta hadda aad maqasheen oo 60 cashaa waxaa idinka ballan qaadayna 4 sano ka bacdi inaad noqoto dowladaha ka magacaaban Afrika hadduu ilaahay
ومسخماسو مركا أركيسان أركيسو أما حجر وحن ناحية ومسخماسو مركي لودي لي أسكرتها فرنتي كجرتا وكان على كل ينس مشاهر كودا ومسخماسو مركي إليك مشاهرين الذين دي مشغالها دولة الرئيس لودي مشاهرين ومسخماسو لعكتو ويد تايا قف جيب كي سيئاتي وانا جوجينينا أما أنا نودي بتين وحالة صعودة أمنيقا وح كليقين عنقو أصمين كرماها ووح نوضي قال شغل نوضي تالوي أمنيقا سيوحو كوحرينيها إذنك إذا مدان حسنة ترضو واتقانان قولوا والبي قيد والبمي استاقي كان إذن كان الرباينا وشاكتان حوكتا ماشي عدو كجرو ماشي طوفك قرن دمسو كجرو إذن كان الرباينا وصو شاكتان أمنيقا مركز لغا ربايني أكتقريان ويقبتان waxaan uga mahadcelinayaa shalay magaalada xaafadda Baabari ninkii ku haasayay oo qof shakhsi ah oo reer Baabari uu soo sheegay haddii arrintaas ay badato qof walba uu magaalada degan oo reer Banaadir oo xil ka saaro oo uu sheego kuwa guryaha ugu jira oo sharqodayaasha ah waxaan ii sheegaynaa 6 bilood magaalada nabad inay noqonayso insha Allah waxa kale ii sheegaynaa annagu waxaan u taaganahay badan u qaadnay وأن دارو مرني حسلوني ذا مقالة يا دارو مرني حسلوني ذا معناه هذا وحي تاي مقالة بالعدة دي قروف دي إيو شرف كذي نسون نقطه إن لا ترتنتو كينيا نيروبي إن لا ترتنتو أديس أبابا إن لا ترتنتو عاصمة هدوك ما كنا ترتمي كرنو إياه برانو مقالة حيسة مرأيان وقبيل عرف ساريه وشعب كلهم لينايو كنا ما ترتمي كرنو qofkii askariga oo qof shacab oo u kaysta ogaaw waxaad ogaataan tiirka ku dambeeya maxkamadda lagu saari waxa ku dambeeya hadaad qof disho waxa ku dambeeya tiirka inaad istaagayso ciidamada qalabka sida waxaad ciidamada qalabku sida u tihiin shacabkiina inay ilaalisaan inay ixtiraamtaan inaad la shaqaysaan iyagaad wax ku tihiin haddaad laysaan ood xurmadda raysaan yaan dowladdu u dhaxaynow yaad idinku ciidan u tihiin shacabka kiisa liita ha la qaado kiisa tabardaran oo laga xaqdaran yahay xaqiisa ha la siiyo kan tuuga oo qaayinka ah oo qarandumiskaana qabta xooggiina kaas ku bixiya shacabka ha ku bixinina xasiloonida waa taas marka in qof walba uu sharciga u hoggaansanaado ma aha qofkii qori haysta inuu ka awood badan yahay shacabka iyo dowladda ma aha waxa weeye qofka qoriga haysta oo ciidanka ah wuxuu qorigu u haysta difaaca dalkiisa iyo ummaddiisa intaasaa idinkaga fadhiyaa waa ogahay hawl fiican baad qabataan maalin walba waa u heelan tihiin difaaca dalkiinna laakiin khaldaadka dhacaya iyo kiima xun oo ku soo jeesanaya maatida ama dhibaateynaya hala qabto maxaa yeele magaca dowladda iyo magaca ciidanku wax u dhimaya hala qabto ammaanka la dagaalanka argagixisada waa naga go'anta laakiin waxaa nooga horreeya inaan leenahay walaalaheenaad tihiin carruurteenaad tihiin ilaahay idin soo hadeeyo noo imaada annagaa siinayna waxaad u baahan tihiin dowlad fiican waa haysataan dowlad aamina waa haysataan dowlad caalamka la xisaabtanta waa haysataan ciidankan amisoomina la jooga walaalaheenna oona difaacaya haddaad dhibka joojisaan guryahoodan u diraynaa joojiya dhibka ummaddiina hallaynina hantidiina haburburina imaada noo imaada kuwa ajnabiga ah oo halkan u yimid inay ummadda soomaaliyeed u diidaan dowladnimo oo u diidaan horumar oo caalamka naga xidhaan oo naga dhigaan Soomaaliya inay tahay bahalgaleen oo ay ka dhigaan Muqdisho meel aan la iimaan karin waa iska keenin ceelinayn dawladda dadkan waa in ka saareen anaga iska dadka anaga iska leh dadkuna anaga doorteen waxaan ku shaqeynaa horeyna waa idin kaga sheegnay waan ku sheegnay waxaan ku shaqeynaa oo ballanteena ahayd danta dalka iyo dadka iyo diinta ciidanka qalabka sidaad ahayn
jirteen waa ogtihiin sidii laydinkaga yaqaanay africa waa ogtihiin maantana xaaladdan ku jirna waa ogtihiin inaan wax ka bedelno xaaladda waa ku qasbanna inaad xaaladdu wax ka beddeshaan waa ku qasbantihiin oo aad qaadataan doorkii aad lahaan jirteen xaalad iyo duruufo aad ku jirtaan annaga waa idin garab taagannahay mushaaradiinna waa idinkugu soo dadaalayna idinkuna dalkiina u dhinta qabyaaladana ka fogaada qabyaaladda waa tan soomaaliya qarnimadeeda burburisay ka fogaada qabyaaladda waad arkaysaan qabyaaladda meeshayna dhigtay in ciidamo shisheeye nagu kala dhex jiraan in 400-300 oo maxaan ku idhaahdaa ciidamo xagjirtaa oo dibadda ka yimid inay soomaaliya u diidayaan nabadda waa aragtaan meeshaas waxaana gaarsiiyey qabyaalad ninka hadduu dareeska xirto calankana garabka ku xirto waa nin qarana qabiil ma aha maalinta qabiil aad muriyayso ogow waad ka baxday ciidanka waana ku maxkamadaynaa waxaad u dhaaratay qaranka soomaaliyeed inaad difaacdo intaasaan kaa filaynaa waxaa noogu soo xigta cadaaladda oo aan ballan idinkaga qaaday ammaano iyo amni waa hawl iswata oo hadda aan wadno cadaaladda soo fiirsada soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanna cadaaladda cadaalad waa dhamaatay ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda heli waayaan wax fiican maaha ragga odayaasha ah oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5 jeer oo isku rogtaan waktigeeda waa dhammaaday in hooyo ooyaysa ama qof xaqiisu u ooyaaya aad dhibaataysaan waktigeeda waa dhammaaday cadaalad baa idinka raba haddaad cadaalad keeni weydaan annagana ma madhashaan shacabka ma madhashaan dowladda ma madhashaan waxaad ku dambaynaysaana xabsi mar damba dhici mayso oo anaa ballan qaaday oo dowladdaana ballan qaaday qof soomaaliyeed intuu hor tago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha uu taagan yahay gaarsiiyey oo ilaahay noogu carooday oo aan adduunka uga hooseenno 2 qof iyo 3 qof oo xun ka yeeli mayno inay magacayna isticmaalaan ummadda soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idinla xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatidna oo cadaaladna annagana waa idinku abaalmarnaynaa aakhirana ilaahay waa idinku abaalmarnaya jannaad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annaga idinku ciqaabina aakhirana waa ku dambaysaa arrinta horumarka dhaqaalaha oo ku xiran cadaaladda markii aan ammaanada idin ilaalino oo amni keenno oo cadaalad idin keenno dhaqaaluhu waa horumari ummadda soomaaliyeed waxay u jehaysanaysaa barwaaqo iyo horumar iyo nolol waa igu ballan dhallinyarada soomaaliyeed oo 70% ah oo shaqo la'aanta hayso 4 sano hadduu ilaah yidhaahdo inaan ka shaqeeyo inay shaqo helaan maxaa yeelay waxaan ogahay qaacidada ama formula marka laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ammaanada cadaaladda laga shaqeeyo qof walba waa noolaanaya xitaa annagaa bixinayna welfare wax la yidhaahdo macaawin annagaa bixinayna maxaa yeele wixii jeebkiisi aadi jiray annagaa u hayna qofka curyaanka qofka maskiinka ah gabadha agoonta haysata ilmaha agoonta ah kulli annagaa dawlad u ah ilaahayna anugu nagula xisaabtamaya dhaqaaluhu waa horumaraya haddii dadweynow shacab weynow aad nagala shaqaysaan dawladda aad kala shaqaysaan cadaaladdaad aad nagala shaqaysaan amniga nagala shaqaysaan maxaa yeele markii magaaladan amni ay noqoto waxaa noo imaanaya maalgelin yaa imaanaysa maxaa yeele dalkaani waa dal khayraad badan dhaqaaluhuna wuxuu ku istaagaa 3 arrimood yuu ku istaagaa dalku waa inuu khayraad leeyahay dabiiciya waan leenahay dalkeena waa buuxaa 2 waa in dalku maamul iyo shaqaalo fiican oo hufan oo xirfad yaqaanaa uu leeyahay marka 3aadna dhaqaaluhu waa imaanaya oo labadaas dhaqaalaha ku xiga oo capital la yidhahdaa way naga go'an tahay annagu inaan la tartanno caalamka waa naga go'an tahay
شعب يوعن ربنا إلى أيديكم القطر تنتان شعوب تعارف إلى القطر تنتان النقوى نقوى الله وحنا تتمنى دولة أفريقيا ما دولة يوروب ما كان نقطه ترانسبيرنسي ما كان نقطه ما كان نقطه أمان ما كان نقطه إذن كل واحد ربنا الله شقينت يعني شرب بحنت يوم هنقول أمني إلى علمت إلى النجار شقيسان سي أن أنه إذا أنا ورثة تنتنو عالم كنتي سكالي إنتاس وعن كسر كبيرة وعن كسر كبيرة ومتى الصوماليات هذا يسكت وورثة وضمن من لماذا الصومالية من لماذا الصومالية ومقدس ومدى الصومالية لألكستي جوغان هاديسن أمي دوبين دقاء هاديسن دلقود أمي دوبين هاديسن دين تود أمي دوبين عالم كوي كهريان عالم كوحان كوتر تمنا أنا ومدأ أنا ومدجرة يا عالم كوتر تمنا عالم كوي نفيرنا يان سيدا هو شقينه شعبك يدولة سوى شقيان هذه أركان إن نلده كريم ونوصل استاقيان وح الله وحا كرب لنا ونقل شقينا يان أنا مسلمان أنا عيد أبدا بستاقي بينه إنه أبدا بستاقي بينه أنا وحقب سنكرنا إنه أبدا بستاقي بينه إنه أسكت شنكرنا أنه وين أسكت شنه تاسنا وحكو إيمانيسا دولت في عن يدد في عن أو تشقين له يكو إيمانيسا عالمكو waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay Soomaaliya maalgashadaan maalinta Soomaaliya maalgashi u bilowdo oo dowlad nadiif ay joogto iyo shacab nidaamsan waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano inay ka hormarayso dowladda Afrika goolkeenu iyo visionkeenu waxa weeye 4 sano ka bacay inaan ka hormarno Afrika hadda yarsanina waa ka hormari karnaa waxay ku xiran tahay rabitaankeena annagu ma rabnaa horta inaan dad Soomaaliyeed oo wax walba wadaagin nahay ma rabnaa inaan noqono dad Ilaahay ugu xamdi naqa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin Ilaahay muu xamdi naqi karnaa Ilaahay muu noqon karnaa haddaan intaas gaarno oo iscaafino Soomaaliya waa istaagaysaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Kan